بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا وناكسن دمان داوديال ميل walba joogtaan ee si kastoo muuqaano idin soo gaarayba ku soo dhawaada barnaamijka hal abuurka haweenka oo aad ka daawaneysaan Demo Show waxa barnaamijka igu martiya oo igala qayb qaadanaya hal doorka haweenka Shukri Sheekh Mire oo kamid ah hal doorada da'da yar ee haweenka oo firfircoon ee ku sugan degmada Guraceel ayaa barnaamijka marti igu ah waqtigeeda qaaligan ii soo hortay Shukri soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim walaashay dhuux cali dhuux dheeman waa mahadsan tahay gacmo furan aan ku soo dhawahay soo dhaw adigana walaashay anigoo aad u soo dhaweynaya Demo Show soo dhaw Shukri aad u mahadsan tahay barnaamijkan waxaan ugu talagalnay haweenka hal doorka qofka ugu horeeya ka qayb qaadanaya ayaana tahay laguna bilaabay lana xusi doono taariikhda bal waxaad nooga warbixisaa taariikh nololeedkaada halka wax ku soo baratay iyo sidoo kaleeto marka deegaanka ku soo laabatay bismillaahir rahmaanir rahiim dhuux aad u mahadsan tahay walaashay ugu horeyntii horta ilaaba maad iskale magaciigu waa Shukri Sheekh Mire Xaashi waxaan ku dhashay kuna barbaaray deegaankan Galgaduud gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Guraceel oo maanta ku noolnahay alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan dhashay 1991 bilowgeedii ama Soomaalidu waxay tiraahdo siyaad bixiski waxay Soomaali ay dhahan marka alxamdulillah rabbil caalamiin 2002 ilaa 2004 waxaan dhameystay Quraanka Kariimka heerkayga Quraanka Kariimka oo madrasada diiniga ah aan ka dhameystay isla degmada Guraceel qeyr Allah siiyo adduunka aqrab ilaahay dambigiisa dhaafo dambigana waalidkana Allah dhaafo carabkiisana Allah xifdiyo Cabdikariim Maxamed Warsame Sheekh Cabdikariim Maxamed Warsame baan ka dhigtay dugsigiisa oo ku yaala suuqan ariga weyn oo la dhihi jiray oo biyuhu fadhiistaan ama suuqa ariga weyn la dhihi jiray asalka ahay hadda laakiin aan la deganayn 2004 aan waxaan ahaa ardadii Al-Maamuun Guraceel Al-Azhari lagu bilaabay ama lagu furfuraan kamid ahay alxamdulillah rabbil caalamiin markaas waxaan ka bilaabay fasalka saddexaadka intaas oo asagaan dhiganayay dugsiga primary iyo hoose dhexe asagoo ahay sare isla asagaan ku bilaabay 2008 dagaaladii dhacay oo u dhaxeeyay ahlu sunna wal jamaa iyo al-shabaab ba xoogay qalalaaso inta dhacay qalalaasaas dhacay darteed iyo waxaan aaday xamar inkastoo xamarna xataa laga barakacsanay ceelasha meel la foole la yiraahdo oo ceelasha ka sheeyda yaan ka dhiga jiray oo la foole ka soo aadi jiray ceelasha dugsi sare isla 2009kii oo inta ka tagay ilaa 2010kii halkaas aan maqnay kadib waan soo laabtay oo isla gobolkii markii uu deegaankii xasilay yaan ku soo laabtay gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Guraceel 2010kii ilaa 2011kii waxaan kamid ahay ardadii ugu horeeyay ee ka qalin jabiday dugsiga sare ee Ablaal markaas aan u wareegsaday laakiin ilaa heerka dugsiga sare Al-Maamuun aan ku gaaray xilliga markaan halkaas aadabaan dugsiga sare aan u wareegsaday Ablaal ka bacdina isla Gurceelkan u soo wareegsaday oo ka dhameystay 2010kii ilaa 2011kii ardadii ugu horeeyay ka qalin jabiday dugsiga sare aan ahay isla markaas wallahi fursadu ma ii saamixin ama ma balahayn deegaankan ama maanta heerka uu joogo ma joogin oo ah in oo university ama jaamacad oo lahay isla markaas hadana waxaan nasiib u yeeshay ardadii jaamacadaha lacag la'aanta u soo baxday ama minxada ahay oo aniga waxaan ahay kaalinta saddexaad sidaas daraadeed waxa ay soo baxday jaamacadda Simad oo education ah sidii aan ku tagay jaamacadii 2011 bishii 9aad yaan bilaabay 2011 bishii 5aadna waxaan dhameystay dugsiga sare 4 bilood kadib anigu saasaan jaamacadda ku bilaabay isla 2012 bilowgeedii yaan hadana waxaan bilaabay isla jaamacad kale oo caafimaad ah oo lagu yiraahdo jaamacadda Soomaaliya ama University of Somalia UNESCO 2012 ilaa 2016 afarta sano ayadan soo qaatay simad diploma uga tagay oo aan education ahay ka bacdi waxaan u soo wareegsaday jaamacadda Soomaaliya oo caafimaad ahayd 4 sano aan ka soo qaatay bachelor oo General Nursing and Midwifery ama qaybta kalkaalisnimada umulisanimada isku jirto guud 2016 bishii 4aad 10keedii yaan buug difaacday 2016 bishii 5aad 17keedina waxaan ka soo degay airportka Guraceel alxamdulillah rabbil caalamiin oo deegaankayga rabbi dib iigu soo celishay adigu
iyo 16 markay dhamaatay yaan rabay inaan laabto oon master aado waa ii suurtageli weyday biqudratillah waan iska joogay iyo arrimo waari dartiis waan iska joogay 2017 bishii 3 sagaalkeedii yaa waxaan aasaasay markaas iskuul la yiraahdo Galgaduud Home Educational Development Institute ama macahadka horumarinta aqoonta dumarka ee Galgaduud macahadkaas oo alxamdu shukr bil caalamiin markii hore aan ku aasaasay asbareefad ahaan oo 2017 ilaa 2018 labadaas sano uu ku shaqeynayay asbareefad ahaan oo qaybta caafimaadka ardada aan u dhigayay laba dafca ka qalin jabiday 2019 bishii 8 yaa wasaaradda hidaayada tacliinta sare ee Soomaaliya waxay soo saartay manhaj ka bacdi manhajkii wasaaradaha Galmudug adana oo nala soo gaarsiiyo oo maamul goboleedka la gaarsiiyay wasaaradda Galmudug markaas oo hidaayada tacliinta sare yaa waxaan codsaday in iskuulkan la iga mid dhigo iskuulada ka bacdi alxamdu shukr bil caalamiin waa la iga aqbalay iskuulkii sidii manhajka nagula siiyay ka bacdi markaas ay ugu dhalatay inaan ku sameeyo iskuulkan inaan sameeyo oo macahad u bedelo isla markaasna ay suurta gashay inaan macahadkii aan ka dhigo oo ilaa hadda uu ku shaqeeyo shukri aad u mahadsan tahay sida noogu soo koobtay taariikh nololeedkaaga iyo inaad kamid tahay da'yarta deegaanada Galmudug ku sugan haddana aqoon-yahanada lagu tiriyo waliba u firfircoon waxaad aastay oon ka warhaynaa iskuulka haweenku ay gaarka u leeyihiin oo gabdho badan ku soo gacan qabatay sidee kuugu dhalatay inaad iskuulkan aad samayso waa maasan tahay walaashay dhuux wallahi su'aashaas in badan waa la weydiiyay waasa arin qof walba markii su'aashaas oo arko uu isweydiinayo markuu arko iskuulkan horta waxa ugu dhaliyay waxay ahayd 2017 dhaladkeedii 2016 bishii 6 markaan imid bishii 5 aan dhahay ilaa 2017 bishii 3 iskuulkan asaas intuu dhaxeeyay yaa waxa jirta intaan gobolka iska joogay in aan waa taqaanaa Soomaali markii qof oo wax soo barto hadba meel uu shaqo u raadsana meelo kala duwan baan shaqo u raadsamay markaas meelihii waxaan Soomaalidu ay ku dhaqmaan camal un baa la arkay ma jirto qof iyo maxaa taqaanaa aqoontiisa run ahaantii markaan meelo fara badan tagay anina waxa program igu dhaganaa ahayd shukri aqoontaada iyo qalinkaaga warqadaada 16 sano isku ka dul saarneed waxaad ku keensato shaqada ku raadso run ahaantii ka bacdi hadana markii oo bishii 2017 bishii 2 يا فكر واحد يقول شيء إن الإسويديو يعني سكول دمر أو جوني وليه مركز أنا واحد هاد ويب سايت كان لي هذا Somali Jobs بان مركز تجري جري Somali Jobs كاس الصبح هذا كمان أنا وكجرا أو واحد جرت هالكوليجيو أو ويب سايت كاس أو صاروا ميلا مركز وحنكو أركي أو جوني هاد إن سكول أو قبل إليهن أو سكول أو ماشي ويب سايت الواحد يسينا ياها ويب سايت كله يسينا كوسي لفتي وان أقري بإنجليش أو كو أخرسنا أو كو قرناي وانا اقري اخرس بدل markaan ku sameeyay automatically ana shukri ana hadana waxaan isweydiiyay shukri iskuul kan oo gabdhaha yararka ah oo la sameeyay ma jira Galgaduud ama Gurceelkan iskuul dumar oo qaas ay u leeyihiin dumarkii waan isweydiiyay waan isaga jawaab hadana inuu si jirnaan ogaad automatically hadana markii ugu horeyntii waliba waxaan ka dhigay iskuulkan hadda waa Galgaduud laakiin markii hore waxaan ka dhigay Gurceel oo markii hore magac ugu horeedan sameeyay wuxuu ahaa Gurceel subaxdaas aan go'aan waxaan ku qaataa seed ku sameeyay iskuul la yiraahdo iskuul dumarka u qaas ah ka bacdi magaciisa wuxuu ugu qaatay inaan ku sameeyo 24 saac 24 saac markaan magacii ku sameeyay loogadii hadana aniga shukri ahaan inaan sameeyo isku dayay YouTube aan kala soo degay qaabka loogadii ay dhikaaradii shahaadooyinka loo sameeyo telefoonkan kula soo degay laptopka agteyga yaallay marna telefoonkan fiirsaday bartan ku baraati garaya loogadi marka waan dijiyay waan sameeyay naqshadeedii markaan dijiyay ilaa looga markaad sameeyay waxa la rabaa inaan loogadan kale lagu haysan oo wax adiga special ku ay yihiin marka waxaan raadiyay loogooyinka dhan oo jiro oo waxbarashaadka dhan loogadii marka waxaan ka shaqeeyay qaab mid aniga i khaas ah u noqon ama iskuulkan u khaas ah oo loogadii waxa la rabaa inaan lagu haysan 24 saac ugu qaadatay ba internet markaasna internet Gurceel daciif oo ku aasad speedka aanaysan runtii ka bacdi adigu ilaa $3 ilaa $4 amaran internet ku shubo waan xasuustaa ka bacdi waan sameeyay loogadii bay waxaan ku sameeyay markaas waad ahaan Photoshop markaas ma isticmaalin waa ma aqoon Photoshop bay waad ahaan aan ku sameeyay ka bacdina Gurceel kaana ka dhigay English iyo Latin iyo Carabi sanadana isku haleeshiilahay waxay ugu qaadatay muddo 4 saac ama 6 saac meelahaas adigu 24 saac ilaa 6 saac oo lagu daray adigu muddo ku dhow 30 saacadood iyo ii suurta gashay inaan loogadii sameeyo
kadib inaan eedow ahoo bakaaro joogo oo madbacad ku leh yaan u bandhigay markaasna Gurceel ahayd markaasaan ka codsaday inuu loogadan oo photoshop igu sameeyo waan u diray markaan u diray photoshop inuu igu sameeyay then wuxuu ii sameeyay hadana boonooyin hadana boorow sameeyay markaasna bareefad ahaan iskuulkii markaasaan aan bilaababa oo bishii 9aad 3 oo bishii Maarso 9keedii aan iskuulka markaas furay loogadii wixii dhamaana markaas waxaan ku sameeyay adigu isla bishii 3aad aan ku sameeyay bishii 4aad automatically markaas boonooyinkii wixii dhamaay aan soo sameeyay boorka iskuulka markaas Gurceel ku daabacnay then adigu dad fara badan markaan aan xayiisiyay iskuulkii oo soo dhigay aan baraha bulshada oo iskuulka dad fara badan ama boog aan sameeyay adigu bil camal boog aan ku sameeyay caafimaad ah oo nursing midwifery ahaa ilaa cilmiga takhasuskayga ahaa aan arday fara badan uga faa'iideeyay iskuulka marka ay arkeen magaciisa dhalinyaro fara badan marka wax ila wadaageen fikir ah inaan galgaduud ka dhigo oo Gurceelka aan ka bedelo ay dhan shukriye walaaniyo fikir fiican aan sameeyay oo si fiican aan sameeyay laakiin Gurceelkan ka bedel ee galgaduud u bedel yani si deegaanka dhama u gaaro markaasna galmudug ma jirin oo adigu maamulkan wali lama sameeyo bas adigu in mudaan hadana fikirkii dadkii aan taxliilinayay way shay markaad rabto inaad go'aan qaato hore laga ma qaato wuxuu u baahan yahay wax loo yaqaan critical thinking iyo decision making wax loo yaqaan shayga waa inaad u fikirtaa markaad u fikirto analyze ku sameeyo ama taxliilada kadib aad ka qaadan kartaa go'aan dan shayga waan taxliiliyay su'aalo fara badan oo dhalinyaro fara badan iga iimaanaysay aqoon kala duwan iga iimaanaysay waan taxliiliyay adigu bishii 6aad aan bishii 3aad markaa iskuulkaas bishii 6aad yaan hadana waxaan u bedelay inaan ka dhigay galgaduudii kadib saas oo galgaduud ahaan oo magacu ugu bedelo ku shaqeeyay laad intaas baa ka soo martay oo sameysay oo fikirka oo kugu dhashay oo san ahayn mid hore uga jira deegaanka oo iskuul gabdha u gaar aysan ahayn imisa arday ku bilowday waa maasanta waxay markii ugu horeeyay ku bilaabo waxay ahayd horta qol yar oo 4 mitina oo area maamuun ku yaalo aan markaas aad bareefad ahaan ugu bilaabay adigu isla markiiba gabdho fara badan hore ka soo galeen oo qaybta caafimaadka aad ugu baahnaayeen gaar ahaan qaybta nursingka waxaan ku bilaabay ilaa adigu gabdho 25 ilaa 30 u dhaxeeyay meelahaas aan ku bilaabay oo qaybta caafimaadka aan ku bilaabay gabdhihii am adigu in muddo dhiganayeen qaybta ugu horeeyay adana midwifery ku soo darsoomay qaybta midwifery qaybta nursingka waxay qalin jibiyeen 2017 dabayaaqadeedii ay qalin jibiyeen bishii adigu 9aad meelahaas ay qalin jibiyeen mase 10aad labadeedii ardayda ugu horeeyay ka qalin jibiyeen oo midwifery naasan isugu jira ama kalkaalisanimo umulisanimo isugu jira oo laakiin markaas gabdhihii sidii ay 25 ilaa 30 gabdhood aan ku bilaabay mana aysan wada dhamaysan waxbarashadii run ahaantii maalintaas waxay qalin jibiday 8 gabdhood 25 ilaa adigu 30 ilaa 25 oo 8 gabdhood ay ka qalin jibeen waa dareemi kartaa farqiga u dhaxeeya 8 gabdhood markaas uu qalin jibiday 3 gabdhood oo 3 gabdhood nursing ahayd iyo 5 gabdhood midwifery ahayd ka qalin jibiday oo qaybta ugu horeeyay ahayd alxamdu shukr bil caalamiin ma sha Allah arday kamid ah waxaan ku arkaba inay joogan istaalkan Fayaker baalkii istaalada deegaanka Fayaker kuwan ku arkay kulmiye kuwan ku arkay istaalka weyn oo Sterling xataa tiima joogo koox joogto ku arkay gurmad sidoo kale arday joogto oo dafcadii labaad ay kamid ahaayeen isla markaas la bishii 10aad adana dafca kala aasaasay ayaguna qalin jibiyeen 2018 bishii 6aad inaad umaleeyahay areas ayaguna qalin jibiyeen kabacdi ayagana ma sha Allah qaarkood waxay markaas adigu waxay isugu jireen arday markaas aasaaska aan u bilaabo ABC aan u bilaabay ingiliishka markii luqada meel fiican ka gaareen hadana caafimaad ku dareen ayagana hadda ay yihiin arday anigina iskoolkii macallimiinka oo ila dhiga oo macallimiinka ah ayagana xilli hadda wax bartaan oo iskool dugsiga dhigtaan waayahay markii hore bareefad bad ku bilowday oo lagu barto caafimaadka qaasatan nursingka iyo kalkaalinimada iyo sidoo kale umulisinimada goormay kugu dhalatay inaad ka dhigto bareefad oo aad waliba ka dhigto iskuul caadi ama maxad aan dhahe oo dadkan gabdhaha caadiga ah wax ku barto waa maasanta waxay macadka waxay ugu dhalatay markii hore magac horta aan sameeyahay dhanba waxaan u sameeyay waxay ahayd baan uga dhigaba macadka horumarinta aqoonta dumarka ee galgaduud waxaan uga dhigaa waxay ahayd ba yoomin min al ayam iskuulka inuu noqonayo iskuul meel dega dugsi hoose dhexe leh isla markaasna hadii Ilaahay ugu tala galay biqdratillah ilaa sare oo gaaro laakiin horta meesha ugu horeyda aasaaska horta ku guuleyso
waa fikirka koowaad ugu dhashaba horta ahayd laakiin shayga koowaad waxa uu yahay sidee shaygan wax kugu qabsoomi karaan run ahaantii aniga markaas ma aanayn qof isku tasho kara ama sameey kara xaq dhaqaale ahaan oo ama qof inta shafka ii garaaca ii yiraahdo anaa ku saacidaa diyaar ku ula ah ma jirin aniga marka fikir aan waxa ugu dhalata shaygan marka hore bareefad ahaan ku aas caafimaadkaas ku dhig maadaama adiga cilmigan maanta aad leedahay cilmigaas isku da markaas dhaqaalihii aad ka sameeydo oo ardadaas wixii awoodan aad ka qaado inkastoo aniga gabdha aan shuruud ku xireynin oo gabadha isku dayda in iskuulkii ama lacag la'aan uga baxdo kale aan dhiirigelin sameeyay in arday kasta $4 kii awoodo $2 kii awoodo $3 kii awoodo $5 kii inta ka qaado in aan ku sameeyo iskuulkaas markaan aan ugu sameeyo waxa wuxuu u baahan yahay korontada aad ku bixisay ama kuraasta iyo adigu qalabkii agabka waxbarashada iyo waayo sabuuradii waxay u baahan tahay wixii wax lagu dhigi lahay wuxuu u baahan yahay dhaqaalo kuraasta wuxuu u baahan yahay dhaqaalo arday markuu wax baranayo wuxuu u baahan yahay shayga wax ku baran lahaa alxamdulillahi rabbil caalamiin adigu 2 sano ama sanad iyo 8 bilood meelahaas iyaan waxaan ku waday inaan bareefad ahaantaas aan ku niyada u sheeg in aan saan uga dhigi lahaa macadkaas anigoo waliba su'aashaas ii taagan toon isdhihi lahay anoo iskuul markaas arday gooni ah aan ku sameynayay adigu 8 bilood camal aan waxaan degay meel tuulo gaban agteeda ah oo guri $50 camal aan ku degay markaas alxamdulillahi rabbil caalamiin anaa shaqo helay shaqadii markaas aan shaqeynayay aan markaas waxaan ku shaqeynaa waxay ahayd lacag 250 kontonkii aan asaga ku dabarayay oo kirada uga dhiibay ardadii markaas wax lacag markaas ma ku xidhan ardaygii dhiibana waan iska dhaafaa ardaygan dhiibina waa kaasa kaarleysan ka aha wax shuruud markaas kuma xiri jirin then shaqadii waxay ahayd shaqo 8 bilood way baabaaday then meeshii kiradii dhowr bilood la weydiiyay ardadii ma arkay inay dabari waayeen adigu waxa ugu badato $30 camal ka soo xaroota 2 bilood camal marka aniga aan isku day inaan dabaro yaan haddana waxaan sameeyay inaan iskuulka meeshii ka raro oo gurigayga u raro ardadii markaas aasaaskaas aan ka dhisayay wasaaradda markaas waxay bilowday in ay kormeer sameeydo wasaaradda markaas aan codsiga u gudbista aniga ahayd in iskuulkan aan u baahanahay inaan iskuul macahad ka dhigo aqoonsina la siiyo aan u baahanahay macahad in laga dhigo markaasna aan ustaad markaas maxaa cali faliira markaas noo hagaasime yar oo kormeer ay la socdaan xataa gurigay ugu imaadeen subax barqaana ko xiisadii ku jirnay markaas ay noo imaadeen markaasna arday waxay isugu jireen arday luqadda aan u dhigay arday aan u dhigay maadooyinka aasaasiga Soomaali xisaabtii iyo Ingiriiskii iyo kuwa caafimaad ay isugu jireen markaas hal qol aan ku wada jirnay markaas adigu 6 mitir meelahaas oo gurigay ka dhisnaa meeshii anagu ku wada jirnay iyo imaadeen markaan dhaanamay ani bartaan aan deganahay halkaasaan laakiin deganaa jiro ilaa hadda magac iskuul ku buufsan yahay laakiin halkaas waxaan uga soo guuro dhaqaale darteed oo iskuulkii aan ku bixi karin muddo 8 bilood aniga aan soo dabarayay then meeshaan waxaan ugu soo raray waxay ahayd intaan masaafada jirtana arday badan ay ka hareen ayagoo ay dhaheen ka soo ma gaarno oo arday badan oo magaaladu ilaa way baaxad weyn tahay aan u raray xaafadda Sterling waxa uu ku yaala markii hore Daryeel then ardadii maamulka ila arkay waxay dhaheen maasha Allah shukri iskuulkan sidii magaalada centerka aad u geeylaheed ka shaqeey markaasi oo dadkii u baahan ay uga faa'iideystaan waa isku dayahan taas laakiin adinkan waxaan kaga baahanahay garab maxaad u baahan tahay dhaheen waxaan dhahay agabka horta waxbarashada lambar 1 waan u baahanahay xaq dhaqaalana ma awoodo marka waxay dhaheen annaka maanta waxaan ku dhahaynaa dhaqaalahaas aan ku siihaynaa ma jirto laakiin qalabka waxbarashada in aan intii qalab waxbarasho la keeno ku siinayna koowaad ilaa afraad markaas la qaybinayay automatically koowaad ilaa afraadkii waa liisi anigana oo iskuulkii then markaas iskuulkii aan manhajkii aan gacanta ku dhigay aan waxaan ila alla ilaahay markaan wadadii guusha markaan cagta saartay oo filanaysay then markaas su'aal waxaan isweydiiyay ilaa markaad macahad sameynayso wuxuu u baahan yahay jadwal ama qorshe u baahan yahay balaan inaad u dejid balaankii markaas u fakiray balaankii markaan u fakiray aan waxaan raadshay macallimeen markaas ilaa shayga ardayga markaad iskuulkii sameeyso wuxuu u baahan yahay yaa kula wada iskuulkan ilaa hadaad tiraahdo fasal badan aan sameynaya fasal kasta kaliya adiga isma qaybi kartid dhalinyaro fara badan aan u bandhigay oo iskuulkan kaale ila dhiga iskuulkan kaale baalkii aan si mutadawacnimo ku dhigno arday dad fara badan kulay dadka naga Soomaalida maanta markaad war wanaagsan sheegayso waa lagu soo dhaweynaa waxa lagu leeyahay wax fiican aad sameeyday kan baad sameeyday kaas baad sameeyday laakiin ma jiro qof inta u dhiirrada inuu sheegan si mutadawacnimo ku sameeyo wadadii uu kula qaado adigii waa aad u yartaa qaliil ah dhalinyaro fara badan way soo dhaweeyeen laakiin inay iskuulka ila qaadaan ku adkaatay mindha dhaqaale iyo waxaas camal ay mindha rajeynayeen anina runta u sheegay markii hore waxaan dhahay shaygan si free aan ku soo wada 2 sano sidaas freegan hadda waxaan rabnaa inaan ku wadnay kaale ila wada way ku adkaatay ana fikir marka su'aal waxaan isweydiiyay ardadan aad aasaaska u soo bilowday heer intay marayaan hadda 3 gabdhood waxa jirto oo dafcadii labaad markay qalin jabinaysay qeyr Allah siiyay yarkan Shariif Hormuud iyo iyare markaas wuxuu ma jirtaa shukriye gabdho aad aas u soo bilowday
oon waxbarasho iska bixi karin oo meel fiican intaad gaarsiiday isdhihi karaa yaa markaan waxbarasho ku geeyo si fiican markaan kuula sii jaan qaado way jiraan aan dhahay 2 gabdhood oo kamid isoo gudbiyo dhaanaa waxbarashadooda ka faala qaadan aada u mahadsan tahay eri dad u soo bilowday ha aas-aaska yacni oo bacta arda uga soo bilowday ma jiraan oo dhahay oo heer fiican intaad soo gaarsiiday aan samay karin hadda inay waxbarashadooda sii wataan adiga inaad isleedahay allow yaa u sii wada ayakan yacni niyadoodii markaan ay siiyaan isdhahan waxbarashada ma sii wadataa way jiraan aan dhahay waa buuxaan dhahay ilaa 6 gabdhood oo ka badan yihiin 2 gabdhood oo kamid aan ka faala qaadi karaa oo dhahay oo iskoolka adult aan geynayo okay aan dhahay diyaar khayr Allah ku siiyo fikir markaas haddana waxa igu sii dhasha ah in aan sii baraarugo haddana ah gabdhihian u yeeray gabdhihian markaas aan ilaa waa kala aqaan aniga gabdhahan inta muddo wax soo baray sanad ka badan gabdhihian 2 kamid aan waxaan iri 2dan gabdhood aan u baahana intaan markay iskoolka aanan codsigiisa u gudbisanaan gabdhihii waxaan u bandhigay 5 gabdhood oo kamid ah inta u wacay gabdhii ugu firfircoona ahay oo 5 gabdhood inta u wacaan waxaan iri nimayo iskuulka inaan macad ka dhignaan rabnaa oo bareefad ahaantan aan burburino macad toos aan sameeyno manhajkeen hadda qayb kamid aan helnay wadadii guushan hadda cagta saarnay koowaad ilaa afraad aan haysanaa in aan